السلام عليكم كسر دواد المانتين مقال كنا مانتا أنتم حكي هالدونا هالكان فيلمانتا عن فيرسانو فيلمانتا waxay u qaybsamaan saddex nooc kuwa musalsala kuwa actiona iyo filmaan kale oo iska caadi ah riwaayada kuwa maanta aan ka hadlayno waxa waaye filmaanta actionka ah ee qaabka loo sameeyo hadaba waxyaalo badan oo aad weyn ee halkan ku ogaan doontaa waxyaalo lagaaga dhigay wax khayro caadi ah ee filmaanta actionka ku arno dhammaantood waa wax lagu sameeyo guri gudihiisa mana ahan wax dhib badan laga maro balse waxa walba waxaa sahlay teknolojiga casriga ah ee caalamku ku sii badanaysa adiga markaad muuqaalka daawanaysid waad la yaabaysaa waxa isleedahay waxaan sidee loo sameeyay su'aalo badan ayaa maskaxdaada ka buuxa balse halkan waxaa ku baran doontaa waxaas oo dhan inay ahaayeen wax kama jiraan sidoo kale filmaan caan ah ee adduunka dhan laga fiirsaday ama cid walba oo filmaanta fiirsataba ay taqaan ayaa halkan kusoo bandhigi doonaa qaabka loo sameeyay iyo sida loo duubay intaba kusoo dhawaada Cabsaaq Amikis kala soco technology iyo wax walba ku xiiso geliya mahadsanid marka koowaad halkan waxaa ku arkaysaa inuu colorka backgroundka uu yahay blue iyo green waa labada color ee effectiska la shaqeeya isla markaas ahaana la remove karo xilli walba loo baahdo marka hore waxaa lagu sameynayaa muuqaalka gurigan gudihiisa ayadoo la isticmaalayo labadaas color midkood blue iyo green kadib waxaa laga saarayaa hadhowto backgroundka waxaana la soo gelinayaa backgroundkaas wixii loo baahan yahay oo muuqaalkaas lagu qurxinayo waxaa arkaysaa meeshaan doon loola joogo gurigiisa haddana iyadoo bad joogta ayaa halkan ku arkaysaa badda ayaa si gooni loo soo duubayaa muuqaalkan halkan ayaa lagu sameynaya kadibna halkaas ayaa la geenayaa waxaa feeg ah xitaa wax kaste oo aad ku arkaysay filimka sida gawaarida lala marahayo suuqa iyo fardaha wax kaste waa feeg gurigaas gudihiisa ayaa lagu sameynayaa wiishkaas iyo kaambiroonka casriga ayaa la isticmaalayaa haddaba ha ku kadsoomin halkan waxaa ku arkaynaa muuqaal filimkan waa filim caan ah oo wiilka badda ku jira ee inay baaba'aan dadkiisa dhan ka soo harayaan isaga iyo shabeelka filimkaas runaantii markaan fiirsaday dhowr sano ka hor aad buu ii saameeyey laakiin hadda markaan arkay qaabka waxa loo sameeyey waa kaaf iyo kala dheeri wax isku dhowna ma ahan ninka dhanba badda ku jira ee wax walba intaasoo sano ku jiray badda waa ninka meeshaan waaskada ku jira marka wax walba waxa waaye la qurxiyey oo waqti badan la geliyey kadibna waxaa sahlaya waxaas effectiska badan ay isticmaalayaan iyo maskaxda iyo wax la isku geeyay laakiin filimka ma ahan wax dhib badan oo saas laga maro iyo wax reality-ga iyo wax ay ka hadlayaan u dhow doona bal arag meeshaan waxa ka socda filimka waxaad arkaysaa qaybta marka uu joogo filimka caadiga ah ee la soo saaray iyo markii la sameynayay halkan waxaa ku aragtaa wiil ku duulaya ama caruur ku duulaysa ulo filimkan waqti hore ayaan fiirsaday run ahaantii markaan fiirsanayayna waa la yaabanaa qaabka caruurtan ushaan ugu duulayso filimka waxay ka wadeen ayaga inay waxyaalo baawar ah oo sixira ay u leeyihiin balse halkan waxaa ku arkaysaa qaabka loo sameeyey green screen iyo ulihii oo si kale ay u saarsaaran yihiin kadibna laga qaaday effecti kadibna ay noqotay wax la yaab ah ee qofku isweydiinayo qaabka ugu duulaya filimkan waxaa la yiraahdaa Black Panther waxaa jilaya actorka caanka ah ee dhawaan geeriyooday ee Black Americanka haddaba filimkan waa wada fiirsanay qaabkii loo sameeyey waxaa arkaysaa meesha la taagan yahay markii ay buurta ku dagaalamayeen balse inay magaalo joogaan ee halkan arkaysaa iyo beeliska caadiga
Thank you.